gaalkacay iyo dhuusamareeb oo adiga deegaankaadi ah kuwii adiga aad rabtay oo laga soo diiday yaad u celin lahayd ood ku qasbi lahayd annaga marka mana qasbi kartid mana aqbalayno wax Soomaali ay waaya ninkaas waxa ninkii lafta gareen ahaa fiidiyoga uu dheeraa waa kala jaray dada wuxuu yiri waxay rabaan ay dad dhulkooda xoog ku soo degaan oo ay dadka dhulkooda kacsadaan dhulka dawladdu leedana subax walba gadgadaan wuxuuna hadalka kala jeedaa oo u wada wasraakiisha shabeellada dhexe joogta oo qabiilaynayo oo qabiilka ka dhigayo oo kuwiisi jufadeyda maahan uu leeyahay asagoo madaxweynihii koonfur galbeeda raggaasa madaxweynayaal ka ah wadankii oo maamul goboleedyada hogaamiye ka ah barnaamijkan waa barnaamij naara ii sheer gare fiidiyogan uu dheera waa soo jaray ninkii lafta gareen ahaana afku furtay wuxuuna leeyahay xoogaa lagu qaata dhulkii koonfur galbeed lahayd shabeellada dhexe hawiya dhacay iyo wixii la halmaalo meeshaas la jooga oo la qaylinaya waxaan rabaa galabtay inaan su'aal weydiiyo lafta gareen meesha jufadaadu degto oo shabeellada dhexe ku taal inaad soo magacowda laga rabaa marka hore oo tira waa meel heblo oo magaceeda soo sheegto oo qabiilkaagu degan yahay xoog lagu sheegto awood lagu sheegto dhulkoodana laga qaatay secondly haddii aad iska dhaadhiciso koonfur galbeed inay sumad ay ku taalo jufadaadana qoomiyada degta beeraa ku yaala hantiya ku taala guriyaa ku yaala wax walba ku yaala nooc walba oo dunida lagu noolaado lagu sameeysto aduguna waxa rabtaa inaad dad barakicisid adduunkan casriga ah oo mobilka aad ku hadlaysid laga dhageysanayo aad rabtaa inaad dad barakicisid qof walba wuu og yahay qalbigaaga iyo waxaad aaminsan tahay iyo cuqdiga kugu jira qof walba wuu og yahay nin hogaamiyaha madaxweyne ah oo dadka koonfur galbeed oo dhan u cadaalad fari kara maaragtay la isweydiinayay inaad tahay laakiin waxaa la ogaaday nin qabiil dhul u raadinayo oo weliba raxan weyn dhul u raadin maayo jufadiisa dhul u raadinaya inaad tahay laakiin marka hore waxaa fiican inay jufadaadu tiro badan tahay oo meel kastana kuu qaban karto wiilasha koonfur galbeed way fahansan yihiin ninkaa tahay markii labaad inaad dhiig faraha la gashay oo markii labaad oo dhiig adoo faraha kula jira xasan sheekhna badda kaa bixiyey qof walbana waa og yahay waxaan caawa rabaa inaan kuu sheego shabeellada dhexe way ka tashatay koonfur galbeed waxayna ku darmatay oo raacday go'aankaasna la isla qaatay banaadir state intii la dhisayayna sugaysaa calanka koonfur galbeedna waa laga mamnuuca in lagu dhex qaato ama lagu dhex isticmaalo calanka shanta geesna laga isticmaalayaa ee Soomaaliya intay maamul helayso raacayso sababtoo ah gardarrada qofka bili aadanka oo sameeyo oo waliba qofka hoggaanka oo sameeyo oo ciidankii farayo qofka ka hooseeya ninka hogaamiyaha ma qaato mana yeelo waana gunnima hadduu qaato waxaa ka samaysa barawe oo ciyaalka yararka aad kula soo ballantay oo tiri dadka magaca la dila saraakiisha dila madaxa ka toogta dagaalka qawaariishta inuu joogsadaan raba lacag badana lagu sii adigu dhihi maysid saas laakiin ujeedkaaga iyo dantaada iyo hadafka leedahay in maaragtay xabad inta bilaabato la isku baabao aad waxa rabtaa jiida xasan sheekho tiraada waa la ilaahay hawiya ilaahay oo dhowr maalmood ku anducootaa rabtaa laakiin nin kastaba wuu ka dhacsan yahay filimka wada lafta gareenow wuu ka dhacsan yahay dagaalka qawaariijtana ku baaqan maayo halkaas waa loo socdaa waxaan ogsoonahay rag badan oo raba qawaariijta inay haysato wadanka inay email la qorayaan oo ay u dirayaan international community-ga ay leeyihiin dad rayid ha la laayay xasan sheekh rayidkii u dhameeyay diyaaradii bayrakdaad eberay dadkii ka dhigeen ha laga fiirsado ha la soo baaro in emailadaas tirada badan rag dirayaan ogaha ragga dirayaan waan aqaanaa dantay leeyihiinna waan aqaanaa waxaana la isku hayaa meeshaan waa rag maaliyad ganacsi ku dagaalamaya iyo dalaalin ay adeegsanayaan labadaas group ka dagaalamaya wadanka oo rabo wadanka inuu soo gudbin horumarna gaarin ninka qaanadiisa ay ku soo dhacaysa 2 milyan 3 milyan 4 milyan oo dollar hal mar oo la yiri dalaala tahay burburi wixii la taagaba iyo wixii la dhisaba waa gooni ninka shaqaysanaya oo dekadaha waaweyn isticmaalaya oo raba inay Soomaaliya asaga maahan inta kale halkaas la qabtana waa gooni anu intaba waa la socdaa waana ka warqabaa qawaariista day meesha ka baxdana waxa imaanaysa wax la wada